السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa weeyaan statistics waxa weeyaan qaybtan waxa weeyaan chapter statistics marka chapterkan statistics waxaan ka shaqeyn doonaa excel inagu ujeedadana ka leenahay waxa weeyaan chapterku aad buu badan yahay calculationkiisuna aad buu badan yahay marka maadaama chapterku badan yahay calculationkiisuna badan yahay example-ladan ku qoran chapterka ayaynu excel kaga shaqeyn doonaa marka qaabka ugu fudud ee loogu shaqeeyo ama looga shaqeeyo excelka xisaabta ku shaqeyso advanced excelka programkan excelka waa advanced qaybtiisa advancedka ee lagu shaqeeyo statisticska ayaynu eegi doonaa marka ujeedadan ka leenahay waxa weeyaan chapterkan example-ladan ku qoran hadday tahay tusaale ahaan example-kan hadday tahay waa mean-kii sida mean-ka loo soo saarayo medium-ka sida loo soo saarayo range-ka sida loo soo saarayo mood-ka sida loo soo saarayo mood-ka tusaale ahaan mood-ka halkaa ka muuqda sida loo soo saarayo range-ka sida loo soo saarayo inoo soo socda variationka ama varianceska sida loo soo saarayo standard deviationka sida loo soo saarayo standard errorka sida loo soo saarayo sampleka sida loo soo saarayo dhammaan waxaasoo dhan sida loo soo saarayo ayaynu kaga shaqeyn doonaa excelka marka tusaale ahaan iminka waxaan usoo qaadanay chapterkan inaan isbarbar dhigno chapterkan statisticska ee halkan ka muuqda iyo qaybta excelka markaan kaga shaqeyno xiriirka ka dhaxaynaya iyo labada tusaale sida isku mid noqonayaan marka tusaale ahaan wanaga tusaale excelka soo qaadanay excelka tusaalihiisa halkan ku qoran marka soo saaraysa marka total sad a iyo sad b baan soo qaadanay marka labadaba laba example weeyaan laakiin labadaba waanu ka wada shaqeyn doonaa marka excelka advanced excel statistics weeyaan marka xiriirka ka dhaxeeya qaybta excelka sida lagu shaqeeyo statisticska ee weliba advancedka marka equal bayn si doona marka equal taabano xagga hoose far baynu qori doonaa ereyga far baynu qori doonaa marka qows baynu furanaynaa qows markaan furano sad a ayaynu saa ugu soo jeedinaa sad a baynu saa ugu soo jeedinaa tusaale ahaan equal baynu qoraynaa deetana far baynu qoraynaa marka far qorno qows baynu furanaynaa marka qows furano sad a baynu saa ugu soo jeedinaa marka sad a saa ugu soo jeedno ayaynu qowskiisa ugu xidhaynaa marka qowskiisa ugu soo xidhno ayaynu tarsiinaynaa marka tarsiina marka totalkeena way isku soo geesmaysaa totalkeena marka isku geesmaysaa xagga hoosena waynu jeedinaa marka xagga hoosena waynu jeedinaa xagga hoose markuu jeednaa labada sad a iyo sad b totalkooda baa isku imanaya labada total ee sad a iyo sad b marka waad aragtaayo way isku soo keenay marka sad a iyo sad b labadaba waynu totalkooda waxaan soo saarnay waa xagga hoose ku qoran midna waa halka ku qoran midna waa halka ku qoran marka markaynu totalkooda isku soo geyno waxaan ka tegi doonaa excelka data marka ku dhufano waxaanu ku dhufan doonaa data analyze marka ku dhufano waxaa noo soo bixi doona shaashadan yar data analyze marka waxaa ku qoran ANOVA correlation waxaasoo xisaaba ku qoran marka inagu waxaan ka tegi doonaa descriptive statistics marka okay bayn siin doonaa markaan okay siino shaashada yar baa kusoo baxaysa marka shaashada isugu soo baxdo waxaasaynu iska qaadi doonaa markaan iska qaadno waxaynu highlightka soo saari doonaa sad a ilaa totalkeeduna okay ayaan soo saari doonaa highlightka markaan highlightka soo saarno tan hoosena ku dhufan doonaa marka waxaan iska baabiin doonaa waxa halkaa ku qoran marka halkaa bannaan ayaynu ku jiidi doonaa iyadana halkaa bannaan ayaynu highlightka soo saari doonaa markaan soo saarno waan kusii deyn doonaa markaan kusii deynay markaan kusii deyno waxaan tegi doonaa okay baan siinaynaa marka imika okay ayaan siin doonaa markaan okay siino okay ku dhufana marka imika sad a iyo sad b ba okay noo soo saaray sad a iyo sad b waxay noo soo saaray mean-kii buu noo soo saaray standard error-kii buu noo soo saaray media ayuu noo soo saaray mood-kii buu noo soo saaray standard deviation-kii sample variances-kii skewedness-kii range-kii maximum minimum sum-kii wixii oo dhan ba okay noo soo saaray marka excelka waxaasoo xisaab oo dhan imika intaasoo dhan way calculation dheer buu baahan lahayd oo laga soo shaqeeyo oo ka soo shaqeyso marka imika tusaalaha marka saa ugu dhufano halkaas waxa weeyaan sad a waa kan marka imika sad a marka saa ugu dhufano waxaasoo dhan bay noo soo saaray marka markii noo soo saaray imika tusaalahaan halka waxa ku qoran mean-kii waxa noo soo saaray 95 oo halka ku qoran standard error-kiina waa kan noo soo saaray standard error-kiina waa halka ku qoran media baa ku qoran mood-kii baa ku qoran
standard deviation baa ku qoran skewness baa ku qoran reach baa ku qoran marka waa halka ku wada qoran salaamka 10 buu ka soo qaatay minimum lambarka u yar marka waa 10 waa halka ku qoran lambarka u yar halka muxuu noqonayaa marka 10 buu noqonayaa lambarka u yar lambarka u weyn waxa weeyaan totalka la isku geeyay totalka marka la isku geeyo ayuu lambarka weyn soo qaataa halka ku qoran totalka la isku geeyay weeyaan halka ku qoran waa maximumkii samki isku geeyntooda waa halka ku qoran dhamaan total dhamaan marka la isku geeyo waxay noqdeen xisaabta halka ku qoran bay noqdeen marka imika tusaale ahaan waa sad a hadaynu highlight-ka soo saarno imika sad a hadaynu highlight-ka soo saarno hadaynu highlight-ka intaan soo saarno oo aynu midabka marino midabka marino aynu bol ka dhigno fartina yar waaweynino imika waa si fiican bay noqotaa marka imika sample iyo standard hierarchy iyo moodki iyo mediumki iyo standard hierarchy dhamaan oo halka ka wada muuqda marka hadii aynu ku noqono slide-keeni tusaale ahaan oo aynu eegno slide-keeni waa kan slide-keeni marka waa kan slide-keeni xisaabta waa kan marka imika slide-keeni halka maxaa ka muuqda mood marka moodku waxa weeyaan lambarka soo noqnoqoshada badan weeyaan hadaynu dib u noqono halka waxa ka qoran mean marka meanku muxuu noqonayaa meanka qaacidada lagu heli jiro waxa ahayd qaacidada lagu heli jiro waxay noqonaysay number intay ka kooban yihiin oo loo geeyay 1 oo loo qaybiyay intay ka kooban yihiin marka imika waxay ka kooban yihiin waxa weeyaan 5 bay ka kooban yihiin hal baa loo geeyay 6 bay noqonayaan 2 loo qaybinaya marka 2 marka loo qaybiyo 3 baa soo baxay halkaas 3 saas ku soo baxday marka 5 waxa ka timi ka iyo ka oo ka 5 shanta halkaas sare ka timi marka halkaas sare ka timaaday inta yiin baa loo qaybinaya markii inta yiin loo qaybiyo waxa weeyaan waxa noqonaya 5 + 1 marka formulada halkan ay ku qornay formuladu hadii aan eegno halkan ay formulada ku qorantay hadii aan eegno formulada halkan ay ku qorantay marka formulada waa halka ku qoran formulada waa taa warka formulada waxa laga medianka marka la soo saarayo waxa lagu helayaa n + 1 divided by 2 marka medianka soo baxaya mediankaas marka halkaas uu ka yimid medianka halkan markuu ka yimaaday halkan waxa ku qoran tiradii example tense ka dhaafno moodka marka la soo saarayo waa kan moodku waa lambarka soo noqnoqoshada badan leh halka lambarka soo noqnoqoshada badan leh waxa weeyaan 9 ku 3 jeer soo noqdo ota 3 jeer soo noqday ota 3 jeer soo noqdayo uu ka wada badan yahay kuwa kale 12 laba jeer oo kale soo noqotay halkan ma way soo noqonba wax soo noqday ma jiro way wada simeeyeen marka moodku waa lambarka soo noqnoqoshada badan leh hadii aynu halkan wadno meanki baa soo baxay meanku waxa lagu helayaa qaacida halka ku qoran summation x barka oo sigma summation x divided by n baa lagu helayaa marka iyadana range-kina waa kan waa small-ka oo large-ka loo qaybiyay laga jaray marka range-ku wuxuu waxa weeyaan 13 baa laga jaraya hal oo yar hal baa ugu yar 13 bana weyn marka laga jaro 12 buu noqonayaa lambarka range-ku 12 noqonaya waxa ka xiga kale sample variances qaacidadan baa lagu helayaa marka sample variances qaacidadan ayaa isagana lagu helayaa marka qaacidadan isagana laga shaqeynaya marka laga shaqeeyo ayaa soo baxaysa s² = sigma summation of x oo laga jaray x² oo n loo qaybiyay oo n + 1 laga jaray ayaa lagu helayaa marka simple amba sample standard deviation kana waa kan sample standard deviation kana waxa lagu helayaa qaacidadan markay tiradii ku soo baxdo intii xididkii laga saaray weeyaan marka waa kuwan xididkii intii laga saaray weeyaan hadaynu eegno skewness-ka waa kan skewness-yadu waa kuwan skewness-yadu waa ka waxa ka kooban left skewness iyo media iyo symmetrics iyo right skewness intaba noqonaya marka kolba waxa weeyaan markaad ka shaqeyso xisaabtaada halka ku dhacdo marka laga shaqeynayo la soo saarayo sigma square marka la soo saaro population meanki amba population size-ki qaacida marka lagu soo saaro ayaa isagana laga shaqeynaya marka imika waa halka ku qoran formuladiisi marka imika hadii aynu ku noqono excel-keeni bal excel-keeni baan ku noqonaynaa imika hadaba excel-keeni baan ku noqonaynaa imika excel-keeni halka maxaa ku qoran mean baa ku qorantay meanku ina siiyay waka standard error-kiina ina siiyay waa 42
media wina siiyey oo wuxuu ka dhigay 50.5 moodkii waa lambarka soo noqnoqosho badan 45 wina siiyey marka imika haddii aynu eegno stat a maxaa soo noqnoqoshada badan leh 45 halka way ku taallaa halka mar labaad halka haddaynu saarno aynu highlight marino haddii aynu highlight marino imika tusaale ahaan haddii 45 ka aynu highlight marino 45 asaan baan mariyey lambarka aan huruudda mariyey baan jeedaa waa 45 uu soo noqnoqday lambarka kale uu soo noqon lambarka soo noqnoqoshada badan leh 45 isagana waan mariyey 45 mar labaad waa ka marka lambarka soo noqnoqoshada badan leh wuxuu noqonayaa mood marka imika lambarka aan marinay highlight ka waxayaan mood oo inoo soo saaray excelka waa excelka inoo soo saaray waa 45 standard deviation ka waxa inoo soo saaray standard deviation ka waxa inoo soo saaray waa qaacida automatic bay ku jirtaa qaab advanced ayuu ku jirtaa excelka marka excelka waxa inoo soo saaray standard deviation ki sample variances ku inoo soo saaray waa skewness-yadu waa kuwan waa skewness-ki waa inoo soo saaray range ki waxa halka ku qoran oo inoo soo saaray maximum iyo minimum ki inoo soo saaray imika example b na sidoo kale haddii highlight marino haddii isagan example b highlight marino waa sidan oo kale markaad ka shaqeynayso markaad excel ka shaqeynayso xisaabta statistics-ka aad bay fudud tahay oo in badan waqti badan waxa ka qaadan laba qaab advanced ay kugu soo saaraysaa ayuu excel kugu soo saaraya xisaabtii statistics-ka u baahnayd aad muddo badan aad kaga shaqeynayd gacanta markaba uu soo saaraya inagii si fudud uga shaqeynay markaad imika aad excelka geliso uu ku soo saaray imika lambarka soo noqnoqoshada badan waa 45 markan ayna siiyey lambarka ugu yar waa 8 balkan ugu yar 8 ugu yar haddii highlight ka marino 8 kaas ugu yar 8 ka ayaa ugu yar haddii aynu buluuga ka dhigno haddii aanu lambarka huruudaas siinaba 8 ka ayaa ugu yar halkan haddaynu ka eegno 8 ugu yar 8 ka aynu siinayno huruud buluuga siinay 8 ka amida ka siinay ayaa ugu yar waa halka ku qoran marka imika lambarkii u yaraa lambarkii weynaa range ki oo kale waxa noo soo saaray range ka halka ku qoran noo soo saaray range ki waxa noo soo saaray in total numberkii noo soo saaray sum koodii noo soo saaray iyo inta ka koobnay adigu dhamaan qaab advanced ayaa lagu shaqeynaya xisaabta statistics-ka excelka marka imika chapter ki dhamaa maanta ka shaqeynahayn inuu halkan wadnay black halkan wadnay halka ka muuqata imika skewness-yadu waa kuwan oo ku halka ka muuqda halka ka muuqda marka imika haddii aynu tagno statistics-keeni oo kan imika marka tiradiisa oo kan siiba oo ka tiradiisina siiyey si fudud baynu ku sawiraynaa imika graafka si fudud ayuu graafka ku sawiranaysaa marka imika tusaale ahaan chapter-kii ka koobnaa chapter-ku wuxuu ka koobnaa 94 slide ilaa exercise-yadoodii wuxuu ka hadlayna waxa weeyaan inta fudud ee imika soo saarnay inuu kaga shaqeynaa excelka inta imika aan soo saarnay excelka ka shaqeyno buu chapter-ka dhan ka hadlayaa marka qaabka advanced-ka ee loo geliyo excelka lagu shaqeeyo statistics-ka weeyaan qaabka ugu advanced ee statistics-ka excelka lagu shaqeeyo marka intaas ku soo gabagabayn doonaa intaynu casharku wixii ka soo duubayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.